Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Baadiyo oo ah siyaasi weyn oo si weyn loogu yaqaan Soomaaliya ayaa maanta waxa uu buug ku soo bandhigay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Bandhiga buugaasi ayaa waxa ka soo qayb galay qorayaal, aqoon-yahano iyo sidoo kale siyaasiyiin iyo ardayda wax ka baratay jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo. Waxaana uu ugu faa'iideeyay ardayda iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo halkan ka jeediyay khudbad ka hadlaysa taariikhda Soomaalida iyo sidoo kale waxyaabihii ay soo mareen. dhaxda markii waxaan arin maskax ruuxa Soomaaliga bal maskaxdiisa ma goynaa halka ma ka jirnaa saab u fiirna maxaa ku dhex jira ruuxa Soomaaliga maskaxdiisa markaan goyna marka maxaa ka soo dhex baxay waxa ka soo dhex baxay ruuxaanu waa reer ka dhashay ruuxaanu waa muslim ruuxaan waa Soomaali saddexdaas asaaska ah marka sidaayba saddexdaas u wada shaqeeyaan wareerimadan say u taala islaamkaas u rumaysan yahay Soomaalida say u rumaysan yahay say wada shaqeynayaan ayaan magisterkiga ka sameeyay marka dad Google garaysaan waa la daabacay oo jaamacadda daabacday hadad Google garaysaan tribalism nationalism and Islam the crisis of political loyalty in Somalia ayaa la yiraahdaa marka Google-ka ku jirtaa waad ka heli kartaa qofka raba heli karaa marka 92 ayaa iga soo dhamaatay marka iga soo dhamaatana Soomaaliya soo aaday soo dhamaadkaas marka iga soo dhamaatay anigu bulshada Soomaali fahamsana soo noqdo marka dabcan halkaas waxaan u maleynayaa inta ka dambeysay waxa waa sheeko barabto waxaan ku jirnaa halgankii ahaa iskuulkii ugu horeeyay xamar laga furo jaamacad in la furo dadka in la kala celiyo in la musaalaxeeyo in bulshada la sameeyo dagaal waxaan galnay Ilaahay og yahay oo ma taqaana ku saabsan dalkan waa burburay dad wax karada ma ka soo dhax bixi karaan dadka Soomaaliyeed taas ugu dambeystay marka waxay keentay carta peace process oo aniga in leeyahay Maxamed Daahir afar xalbad ruuxu ugu horeysan ahayno oo ka shaqeysa farsamo yaqaanada ka ahaa shirka carta ee dawladda Soomaaliya lagu soo dhis intaas markii la soo gaaray haddana waxaad u marinaysaa 9/11 aan heshay 9/11 muga waxay keentay waxay soo cusboonaysiisay jabhadii dib u soo celisay aan ka soo adkaana in carto uga adkaana Ethiopia gacan soo siisay jabhadii shirkii Nairobi lagu qabtay ayaa jabhadii madax laga dhigay annagii bulshada hay'adka ahaadna iyo waxa la wixii aqoon-yahanna ayna shirku waa nagala saaray waxa waa shirkii Imbagaata lagu qabtay shirku waa nagala saaray jabhadiya madax noqday maxaa ka dhashay maxkamada ay kana ka dhashay waxa ka dhashay laba dawladood ka dambeysay waxa ku xigta dawladda damaanta joogto 2012 marka la gaaray waqtigaas marka la soo gaaray waa ogtiin aniga tartanka waxaan kala madaxweynimadan kale madaxweynimada tartanka aan galno Soomaaliya ku sii barta hadana mar labaad marka hore waxaan akhriyay marka hore waxaan sameeyay PhD-ga ku afhamay masterkii aan ku fahmay mumaarasadii siyaasadda markaan dhex galana dadkaan sii barta marka ka bacdi waxaan bilaabay marka mar hadaan lay dooran marka waxaan bilaabay marka inaan dadku wax u qoro marka qoraalaan bilaabay marka qoraalka ugu horeeyay marka oo aan fahmay waxay ahayd dadka Soomaaliyeed waxa ka hadlaysan fahmiga taariikhdooda hadii ummad la rabo in la halaago oo la macna tiro waxa looga dheelaa oo laga maran habaabaya taariikhdooda waa ummatun bila taariikh oo sal go'an ay noqonayaan dadaan taariikh lahayn oo sal go'an markaan darsaay PhD-ga master waxaan fahmayay sida taariikhda Soomaalida ah sida khaldan loogu qoray iyo fahmiga ka khaldamay intaan darsaay marka taariikhda Soomaalida markaan darsaayna waxaan soo fahmay taariikhda islaamka markaan fahmayay waxaan soo fahmay sida ummadan ee muslim ah taariikhda islaamka ayaan u qoray waxaan hadana fahmay sida dawladda Soomaaliyeed si loo soo celsho aysa suuragal ba ahayn in la soo celsho dawladda Soomaaliyeed haddaan diinta islaamka akhlaaqda iyo qiyamka islaamka uu nafaraayo haddaan la soo celinin inaan dawlad aan la noqonin